taliyayaashii ugu dambeeyay boqortooyadii Cusmaaniyiinta Suldaan Cabdulmajiid bin Cabdulcasiis waxaa loo arkay inuu yahay kii ugu dambeeyay kacdoonkii boqortooyadii Cusmaaniyiinta halkaas oo looga masaafriyay markii khilaafadii la baabi'iyay sanadii 1924 oo sidaas uu ku dhamaaday xilkii sultaanka waxaana xilka la wareegay Mustafa Kemal Atatürk wuxuuna aasaasay xukun jamhuuriyadda Turkiga ah Suldaan Cabdulmajiid wuxuu dhashay 30 May sanadii 1868 wuxuu ahaa nin caan ah naxariis badan isla markaana jaceelka uu qabo dalkiisa Turkiga oo xiriirka ula leeyahay islaamka rag badan oo ka soo horjeeday Mustafa Kemal Atatürk oo doonayay in ay aqoonsiga islaamka ka soocaan dawladda ayaa daacad u noqday taashka kadib adeerkii Sultaan Maxamed isagoo og in uu doortay golaha shacabka qaranka November 17keedii 1922 iyo markii la baabi'iyay sultaanka isla markaana la soo afjaray dhamaadkii xukunkii Cusmaaniyiinta Sultaan Maxamed wuxuu dalka kaga tagay sida ayuuna ku seegay Cabdulmajiid xukunkii boqortooynimo oo cinwaankiisuna ahaa amiirkii boqortooynimo waxa uuna ku geeriyooday magaalada Paris ee dalka Faransiiska sanadii 23 Agoosto 1944 xaaladaha boqortooyadii Cusmaaniyiinta ayaa ka sii dartay muddadii u dhaxeeyay sanadihii 1839 ilaa 1876 taasoo ka dhigtay Cabdul Alhamiid kaasoo ahaa sultaankii waqtiga tirinayay isla markaana quseysay isbedeladii siyaasadeed ee badanaa oo ay ka mid ahaayeen samayntii dastuurkii koowaad ee dawladda Turkiga sanadii 1876 oo la aasaasay baarlamaankii kadib boqortooyada Cusmaaniyiinta waxay gashay dagaalkii koowaad ee adduunka oo waxay xulafo la ahayd ururadii la oran jiray Axis kuwaas oo ku wada jireen Jarmalka, Australia iyo Hungary sanadii 1914 kadibna xaaladihii ayaa si aad u sii daray waxa ayna gaartay gabagabadii dagaalkii koowaad dhamaadkiisii sanadii 1918 heshiiskii loo qaybiyay dhulkii boqortooyada Cusmaaniyiinta oo ay wada galeen dalalka Ingiriiska, Faransiiska, Greek iyo Ruushkaba